kuna soo dhawaada dhegaystayaal barnaamij kale oo ka mid ah barnaamijyadii taxanaha ee ku saabsanaa taariikhda Soomaalida. barnaamijkana waa kii 21aad. toddobaadkii hore dhegaystayaal waxaanu idin maqashiinay sidii jabhaddii SNM ee ka soo horjeeday xukunkii uu madaxda ka ahaa Maxamed Siyaad Barre ay uga abuurantay waddanka gudihiisa, oo sidii Maxamed Kaahin oo ka mid ahaa saraakiisha ugu horreysay ee SNM-ta u baxa uu sheegay inay ku lug lahaayeen dad badan oo isugu jiray military, ganacsato iyo siyaasiyiin sare oo xukuumadda markaasi ka mid ahaa. haddaba waddanka gudihiisa ka soko waxa abaabulka ugu weyn ee samaynta SNM-tu uu ka socday dalka boqortooyada Sacuudi Arabiya, oo raggii ugu horreeyay ee hoggaanka ururkaasi u qabtay ay ka soo baxeen. ragga hawshaasi u soo baxay berigaasi ee shaqadoodii uga tegay waxaa ka mid ahaa Cabdisalaan Yaasiin oo berigaasi wax ka dhigi jiray isagu jaamacadda Malik Sacuud ee magaalada Riyaad ku taala. Cabdisalaan haddaba waxaanu weydiinay sidii SNM-ta howlgalkeedii uga bilaabmay waddanka Sacuudiga, waxaana u yidhi sidii u bilaabantay waxay ahayd iyadoo markaa dareen siyaasi oo aad u kululaaday oo dadku ay dareemayeen cadaadiskii iyo dhibaatadii ay ku hayay nidaamkii Siyaad Barre gudaha uu ka yimi, oo ilaa xamar dadku la tageen in ay araaji qoraan oo araaji la xidhiidhay ilaa maxamed ibraahim cigaal allah yarxame markii uu xidhnaa in la sii daayo, ilaa ay ku tabanayeen in dulmi iyo dhibaato zaa'ida iyo daryeel la-aan aan la daryeelaynin dhinacaasi waqooyiga ay jirtay. ayaanu anaguna markaasi nidhi war dadku waa kaa kacay ee gadoodkaa uu gadooday, waa inaynu dhinaca ka raacnaayo wixii aynu inaguna siyaasiyan la qaban karayna aynu la qabana. afkaaro badan baa markaa yimi oo ay ka mid ahayd maxaynu yeelnaa markii la gorfeeyey, aynu jaraa'id qoro, aynu guday xidhiidha la samayno, aynu markaa dadyo badan baanu isugu nimo ay ka mid ahayn Maxamed Xaashi Cilmi, Zaki Axmed Guuleed, niman badan oo kaloo isaguna Maxamed Yuusuf Carte loohan jiray allah yarxame imika dhintay. raggee waanu kulanay, dabeedna markii hore markaan waxoogaa gorfaynay wuxuu arrinkii ku biyo shubtay bal aynu arrinka sii wadno oo xidhiidho kala samayno. kolkaa dhowr xidhiidh markii aanu samaynay aakhirkii waxaanu nidhi waxaa loo baahan yahay urur in la sameeyo. Maxamed Xaashi Cilmi ayaa waxaa jirtay inuu isagu lacag soo ururiyey waxoogaaya oo uu yidhi jariidada lagu bilaabo London ha ka soo baxdo. hase yeeshee waxaanu nidhi jariidadaasi haddii aanay dhabarka ku haynin urur taageeraya wax alla waxay taraysaa ma jirto, leanno Maxamed Siyaad Barre marka dambe wuxuunbuu arkayaa un niman London ka hadlaya ama meel dibadda ka hadlaya oo kuwii gudaha joogayba hadalkoodii dee dhegaysan maayo, ma nin dibad ka hadlaya u dhegaysanaya. kolkaa sidaasaa marka hore uu dareenka bilowga oo hore ahaa. kolkaa hala bilaabo urur ayaanu markaa isla meel dhignay. waata xaggee isugu timaadeen kulankii ugu horreeyay xaggee ku qabateen, imisaa ahaydeen, yaad ka xasuusan tahay? kulamada ugu horreeyay horta Riyaad iyo Jiddaba way ahaayeen. Riyaad waxaa joogay anaa Riyaad joogay, waxaa joogay Axmed Zaki Guuleed baa joogay, Maxamed Yuusuf Carte Dhikaal la odhan jiray, dhalinyaro badan oo kaloo iyaguna dee imika laga yaabo inaan magacyadooda xasuusnay baa joogay. hase yeeshee isla markaana Jidda oo Maxamed Xaashi Cilmi joogay, rag badan oo odayaala oo ay ka mid ahaayeen Xasan Khaliif iyo Cismaan Indhoole iyo Adeebed Xasan Aadan Wadaadiid iyo rag badan oo kaloo odayaal oo iyaguna Axmed Kaysi, rag badan baa iyaguna halkaa joogay oo dee nimankaa waaweyn imika aan magacyadoodii kaaga soo qaaday. marka labada dhinacba waanu isu nimi oo aakhirkii waxaanu isla meel dhignay in hawsha la wado oo aan laga fadhiisanin. kolkaa waxa timi in markii dambe aanu isla meel dhignay urur, in labadii dhinacba markii aanu eegnay Riyaad iyo Jiddaba in ururkii la sameeyo oo la unko. dabeedna anigu waxaan usoo wareegay Jidda oo aan markii hore jaamacad Malik Sacuud tan imikada maan ka shaqeynay. kolkii dambena waxaan u wareegay Jidda, halkaasaan dabeedna aanu kusii unugii iyo hawshiisii sii bilowday. dabeedna markii aanu su-aalihii aanu aad iyo aad u rogrognaan u baadhnay, aakhirkii waxay noqotay in markaa ururka marka la sameeyo aanay suuro gelayn meel dee uu madax bannaan yahay mooye meel kale in lagu sameeyo. Soomaaliya markaa jirta kuma suuro gelayn, dalalkan carabta kuma suuro gelaynin in markaa ururka laga unko oo dee labada midna kamay suuro gasheen un si madax bannaan ururka u samaysmo.
marka waxay noqotay in dadaalkiisa iyo gogoldhigiisa iyo taageeradiisa weynina halkan dalalkan carabta ahaato siiba sacuudi arabia ururka halku hawsha ka wadaana marka uu unkamo ay noqoto meel uu u madax banaan yahay oo marka aan laga fursanayn inay yurub noqoto yurubna waxaanu door bidnay siiba inaanu markaasi ingiriiska xaggeeda aanu ururka la qabano dabeedna waxaanu dadkii nidhi dee taageeraa loo baahanyay markaa maadiya taageeradii macnawigaha mar haddii ay timi dabeedna tii waxtarkii adduunna way keeneen dadkii markii aanu isleelay waxtarkii adduun arrinkiina aanu si wanaagsan aanu u gogol xaarkiisii u samaynay ee aanu u dhisnay ayay dabeedna noqotay aanu dabadii dadku ay u baxaan oo loo bambaxo hawshii waxaad ka wararta cabdisalaan matalan maadaama taageeradii xaggii wixii doonistii iyo xaggii dhaqaalihii markaad egto haddaad xasuusan karto matalan wixii ugu horreysay isu keenteen dhaqaal ahaan inteen lag bahayd lacag dooraanu isu keennay dadku haddii aan tusaale ku siiyo kumaankum riyaal bay bixinayeen oo mabaahenba boqolaalba lama weydiinayne xiisaha iyo dareenka markaa galay markaanu dhaano kun iyo ama laba kun ama wax ka badan baa laydinku qoray dadku way bixinayeen 1971 horraantii bishii January baan anigu London aan tegey iyadoo waliba kharashka iyo tigirka iska bixintay wax oo dhan baan anigu aan lahaa oo aanan ururkii ilaa markaa anigu culays saarin kolka halkaa waxay markaas halkaa raggii kale iyaguna ururka hawshiisa inay usoo banbaxaan ay ahayd ay gadib yimaadeen oo ay kamid ahaayeen maxamed xaashi cilmi iyo ragga odayaada ee marka horeba iyagu iska gacan banaanaa sida xasan aadan wadaadid iyo marxuumkii axmed ismaaciil duqsi ay ahaayeen ragga markaa iyagu halkaa nagaga daba yimi waa tahay Ethiopia sidee baa ku tagteen markii dambe intaanan horta Ethiopia tegin aadanow waxaa jirtay markii aanu ururka halkaa kaga dhawaaqnay 6 April 1981 dad badan ayaanu la xidhiidhnay oo intaanu Sacuudiga joognay laftiisa haddii aan halkaa qudheeda dub ugu yaro noqdo dib waxaa loo arkayay ururku inuu maaragtay dadku ama dhaqdhaqaaqu uu ahaa mid dadkan isaaq uun ay iyagu ay inta badan hormood ka ahaayeen ma doonayeen inay sameeyaan laakiin sida runtii ma ahayn dareen reerna laguma jirin waxa idin la iska dul qaado nidaamka iyo dulmiga meesha jooga kolka dadyo badan baanu la xidhiidhnay dadkuna sideedaba markaa de way iska jirtay in ay dee sida dhaqanku iska yahay dareenka reerku iskaga jiro marka xidhiidhka la samaynayo hase ahaatee mid dee aanu doonayna in sal looga dhiga ma ahayn dad Soomaali waxaanu looga maari maayo dadku waa dad walaalaha dalkana wada leh in urur loo sameeyo iyadaabana dee inta badan in ay ku jirtaa dantu in maaragtay koritaanka siyaasiga ah hadii jeer loo qaado marka way noo suurageli weyday runtii xiidho badan baanu samaynay waanu la samaynay koonfureed hadday yihiin dad badan waqooyigeena la dega dadyo badan oo waqooyigeena la dega la samaynay haddana intaa dadka aanu la xidhiidhnay oo dhan wax dee arrinka nagu diiday ma jirin laakiin wax keenay ogolaansho inay hawshii nala galaanna may dhicin 1980 April markaanu ku dhawaaqnay ayaanu doonaynay dadku inay nala joogaan halkaa lagaga dhawaaqayo mayse nala jooganayaan daro waxaase dhacday maanaan kaga harintiiyo dub baanu u dhignay xataa in la sameeyo idaaradii ururka wadi lahayd 6 bilood baanu dub dhignay in dadkii baadi doono aanu haddana urur dambe oo weyn oo ballaaran la sameeyo kiina 6 bilood baadidoonkaanu ku jirnay oo halkii aanu ka wadnay oo kharash badan aanu galnay oo telefoon ku hadlaynay oo aanu intaa fuudiraynay oo rag maxamed iyo kamid ahaayeen xasan iyo wareegayeen ay dadka la xidhiidhayeen haddana wax la sheegaan dad la sheegaan halkii noogama iman malaa nin iyo laba laga yaabaa inay kasoo qayb galeen aan dee iyagu qudhooduna miisaan weyn markaasi aan siinin ururkii kolkaa markii lagu dhawaaqay wuxuunbu iskaga noqday un urur loo arkayay inuu urur reer waqooyiga uu yahay kolkaa markii aanu halkaa ururkii kaga dhawaaqnay muddaanu joognay siyaasiyan baanu halkaa ka shaqaynaynay jariidad baanu soo saaray Soomaaliya Ancestors la oran jiray xidhiidhka iyagii baanu iyada qudheeda sii wadnay guda iyo dibadba waxaa laga maarmaan noqon waayay markii aanu aragnay dee inaanu siyaasiyan dhisanay in aanay siyaasiyan lagu dhaqaajin karaynin nidaamkii markaa taagnaaya ay tahay in xuduud lagu dhaqaajiyo dabeedna waxay noqotay halka kaliya xuduud laga dhaqaajin karaa Ethiopia oo markaa ururka SSDF ba joogay ayuun bay noqotay dalkeeniina dal la jaaraa in halkaa laga doonto saldhig
oo dabeedna cudud la iskaga celiyo nidaamka. xilligaasi haddaba ay samaysmeen ururadii mucaaridka hubaysnaa ee SSDF iyo SNM waxaa la isweydiin karaa sida ay u arkaysay xukuumaddii ay ka soo hor jeesteen. jenaraal maxamed siyaad barre oo aanu aragtidiisa weydiinay sida uu arkayay mucaaradka ka soo hor jeestay sanadkii 1983 waxa uu yidhi: marka waa dhici kartaa dad la oran karo suugta isticmaalka hogaamiso dhabayaalka tusta way jiraan ama dhiigga dadkooda meelaha lacag kaga soo urursada ama shacabweynaha banaanka jira meelaha ku qiyaano oo dhalanteed iyo baqashin u sheega ka soo urursada kuwayaalka dan ku leh ama horay Soomaaliya u qadi ama haddaba ay dhici karto inay u arkayaan maslaxadooda ugu jira Soomaaliya in la googoyo ama la hadlayo kuwaasu waxaan oran karaynaa kulligood waxay ku jiraan been iyo hadoof ay ku jiraan. bilowgii sanadkii 1982 waxa la sii daayay 2 maxbuus oo muddo dheer xidhnaa oo kala ahaa allaha u naxariistay maxamed ibraahim cigaal iyo jenaraal maxamed abshir muuse oo isagu nool. isla sanadkaasi bishii Juun waxa iyagana la xidhay siyaasiyiin sarsare oo xukuumadda ka mid ahaa oo kala ahaa ismaaciil cali abukar, cumar cabdi qaalib, cismaan maxamed jeelle, cumar xaaji masalle, maxamed aadan sheekh iyo warsamo cali faarax warsamo juquf. nimankaasi madaxda ee la xidhxidhay dacwadooda mar dambe ayaynu ku soo laaban doonaa waxa ay ku dhammaatee hase ahaatee maxamed xaaji ibraahim cigaal markii la sii daayay sanadkii 1982 waraysi ay BBC-du ka qaaday waxa uu kaga hadlay wixii la qabtay muddadii uu xidhnaa ee uu jeclaystay iyo warwarka ku jiray. waxaanu yidhi: iyadoo la ii malayn karo inaanan lib la jeclayn kacaanka iyo dawladda dhisan sidaana wax ka jiriba karaan, haddana ma dafirayo wax badan oo loo qabtay dalka muddadii aan xidhnaa ayaan arkay oo aan ku diirsaday. waa jiraan qalad dhacay, waan maqlay wax ka dhababa mashruuciyo maamulku ka xumaaday, laakiin wixii la qabtay ee fulay ayaa ka badan. waanan ku faaninayaa dawladdii hirgelisay horumarkaas badan. xagga siyaasadda waxaad mooddaa inay indhoweyd booraamo siyaasiyihi furmeen oo loo baahan yahay in la helo maskax culus iyo miisaan lagaga muudo hobolahaas. waxaan ilaahay ka baryayaa in la helo maskaxdaas culus iyo miisaankaas aynu u baahannahay anoo iimaankeeda qaba in la heli doono. inkastoo haddaba dhegaystayaal maxamed xaaji ibraahim cigaal uu waraysigaasi niyad wanaagu ku muujiyey uma dhicin sidii uu jeclaan lahaa. waxaa sii kordhay dhibaatooyinkii Soomaaliya gaar ahaan dhinaca waqooyiga. bishii Noofembar sanadkii 1983 ayaa jabhaddii SNM ay qaaday dagaal ay ku gashay dhulka buuraleyda oo dad badanina ay ku dhinteen. saraakiishii dagaalkaasi hogaaminaysay waxaa ka mid ahaa Ibraahim Dhagaweyne ninka la yidhaahdo. Dhagaweyne oo aanu arrintaasi ka waraysanay waxaa marka hore aanu weydiinay sababihii ku kalifay inay dagaalkaasi ay qaadaan. waxaanu yidhi: dagaalka buuraha waxa lagu kalifay maamulkii hoose oo aan ahayn kii siyaasiga ahaa ee ciidanka Itoobiya ee qaybtan bariga xukumay ayaan muran badan laga dhex dhacay. marka maxay ahayn waxa Ibraahim ka dhex galay waxa ku muranteen idin dhex maray muxuu ahaa? waxaa na dhex maray waxaad moodaa inay jabhadihii xoreynta dhaliil u soo jeediyeen oo shirar aanu galay oo markaas ilaanya lagu dooranayay iyabaa taagnaa xaalado kale oo SSDF gudaheeda ka taagnaa in isku darsi la'aantayadii aanu isu tegi weynay labadii jabhadood ayna warmaa waxaanu rajaba ma laha oo aad moodo mid sanan oo joogay magaalada lee Herer oo Damascus la odhan jiray in uu cadaadis badan saaray. SNM siyaasi iyo ciidanba waa la isu yimi kala la gaaray waxa weeyaan waddankeena aan gallo marka qoladii ciidankana qorshay sameeyaa la yiri ciidankana diyaariya. waa tahay saddex meelood ba SNM ay wax ku diyaarinaysay ciidan badanna markaa maanu lahayn, laakiinse ciidan tayo leh ayaa markaa joogay oo tababarka ku jiray
ciidankii sayid cali la odhan jiray lixle allaha u naxariistee iyo aadan saleebaanna bari baa la yidhi diyaariya dabeetna aniga iyo xasan yunisna galbeed diyaariya ibraahim koodbuurna ciidankaa dhexduu diyaarinayay waxa weeye 3 meelood baanu isu diyaarinay galbeed dhexda iyo bari waa tahay ciidankii dhexe markaa waxa dhacday dagaalkii ciidankii awaare ka soo baxay inay weeraraan oo lixda uu halkaa ku dhinto qorshaha iyagii kamaanu noqon halkii horaan uga sii wadnay 3 ciidan cabdillaahi askar baa ciidankii galbeedka loo dhiibay ciidankii lixle uu ka dhintay ilaahay u naxariistay anigaa kaxeeyey ciidankii barigana maxamed kaahin rag badan oo kale oo saraakiil ah iyo waxgaradkii iyo aqoon-yahanadii way nagala qayb galeen ciidankan kaxaystay wuxuu ahaa 129 dee ciidan sahan badan oo dawladeed baa naga soo horjeeday xaaji saalax meesha la yidhaaho ayaanu ka galnay waxa weyn intaa waxaanu luminaynay raadkayga dhinacaan u baxnay inay gartaan 5 baabuur baan watay halkaasaanu waxaanu ka galnay go'da yar meesha la yidhaaho waxaan sii soconay 18 saacadood oo xaalado adag iyo ciidan meel walba naloo dhigay waxa weyn dagaalkii buuraha ayaanu bilownay 7 dagaal baanu ku galnay meesha la yidhaaho xalo waxba nagamay dhiman dhul aad u istaraatiijiga oo biyihii aanu ka haysano ayaanu galay ciidamada idinla dagaalamaya iyagu xaggee ka yimaadeen markaa ciidamadu waxay ka yimaadeen ilaa berbera ciidamo badan bay isu keeneen ciidan hargeysa jooga oo dabargoynta la odhan jiray markaanu halkaa marayno aanu maalintii 6 ku jirno ayaanu 2 qaybood u kala goonay waa tahay qaybi waxay qabatay ugar iyo xaggaa bari maxamed cali ninka la yidhaaho cabdirasaaq ayaa watay qaybtii kale xaggana usoo noqotayna anaa soo kaxeeyey oo gacan libaax iyo ereyadan ka hawlgashay iyo buurtaa weyne marse la yidhaaho markaa aanu halkaa kusoo noqonay kollay dee waxa weyan nin diyaarad iyo gaadiid iyo warisgaadhsiin sita adna 129 nin ilaa halkaa markaan marayay waxaa iga dhintay 3 nin keliya 2na miinadaa naga dishay nin keliya buurta igaga dhintay waa tahay dadweynuhu si fiican bay noo caawiyeen dhaawacii iyagaan ugu dhiibanay subaxiiba intay sheekh ka qaadeen bay burco geeyeen dabeedna gaashaamay maalintiiba u direen maalin labaadiiba gaashaamuu joogay ninkii marka dadkaagu dee kula hawlgalayo wax weyn bay qabanaysaa waa tahay dagaalkii waxaanu sii wadnay markaa gacan libaax dusheeda ayaa haddana dagaal nagu qabsadeen kaasna waanu ku kala googoonay mar walba u dagaalku qabsada si aad usii furfurmaysay waxaanu ku dagaalanay abubarkhadla agtiisa waxaad ka warantahay ibrahim markaan aad leedahay 2 nin baa ku soo haray waxay ciidankaaga xagu kala lumay markaa mar walba waa dee oo dagaalku qabsadaba waa laydin kala goynaya waa laydin dhex marayaa oo dee ciidan laxaad leh oo tiro leh oo hub wata oo tignika wata waxa weya waa la furfurmayaa markaa markii dambe imisaa isugu soo hadheen adiga imisaa kugu soo hadhay waxaanu isugu soo hadhnay 13 13 baa aanu haddana ku furfurannay 4 baanu isugu soo hadhnay aniga iyo 2 arday oo yaryar iyo nin xasan dayax la yidhaaho raggii macallimiinta intellectualska ahaa aniga xasan baa markii dambe isku soo hadhnay waxaad ka warantahay ibrahim ugu dambayntii raggii 129 ahaa ee aad wadatay markii dambe aad laabatay imisaa kuu soo baxay 16 baa naga dhintay intii kale waa soo wada baxday waxaad ka warantaa qolooyinkii kale galbeedka gala iyagana kolley waxaa si tafaasiisheedii badnayd haya ninka la yidhaaho cabdillaahi askar oo ciidankaa kaxeeyey duruufo adagina way la kulmeen degaanaday galeenna degaano markaa ma ahayn xaaladoodu caawinayso waa ciidanka dee ragga la yidhaha kaalidooday cabbeen ee 8 cisho iyo 8 maalmood bilaa cuntada ku dagaalamayay iyo bilaa biyaha marka xaalada aada u culus oo yaable oon bani aadamka soo marin baa soo maray imise ahayn ibrahim waan kaa dhex galay inaad imise ahayn matalan ciidamada gale galbeedka imise ahayn 140 bay ahaayeen imisaa ka soo noqday adigu ilaa 70 meelood baa ayaa dhimashadu ahayd sida haddaba dhegaystayaal ka muuqata hadalka ibraahim dhegaweyne marka laga reebo khasaaraha dhinaca kala gaadhay SNM-ta dad badan oo aqoon-yahana u badnaa ayaa kaga dhintay waxaa markaasi la isweydiin karaa dagaalkaasi maxay ka faa'iideen SNM-tu amaba saamaynta uu ku yeeshay xaaladii Soomaaliya cabdisalaan yaasiin oo ka mid ahaa aqoon-yahanadii dagaalkaasi ku jiray haatanna wax ka dhiga jaamacadda Malik Sacuud ee magaalada Riyaad ayaa arrintaasi waxa uu ka yidhi
waa sidaad sheegaysay rag badan oo aqoon-yahanaaba ayaa ku jiray oo anigu aan kamid ahaa waxa taana keenay in ragga aqoon-yahanadii ay halganka galaan waxaanu nidhi waa inaanu askarta halkan uun niman dhalinyaro oo naftooda huraayo uun inagu dee dabadooda joogi mayno halkan maaragtay ka amri mayno waa inaynu horkacnaa dabeedna rag badan ba ayaa soo galay ciidamadii oo ciidamadii raacay marka sida runtii haddii aad weydiisay maxaanu ka faa'iidnay wax weyn baanu ka faa'iidnay dhinaca dagaalka dhinaca siyaasadda iyo dhinaca dadka taageeradiisaba waata siyaasiga ahee macnawiyadii ururka kor bay u qaaday oo ururka markaa dee dhibaatooyin maadiya iyo kuwa macnawiba haysteen aad iyo aad bay kor ugu qaaday waata labaadee dhinaca caskariga bas dee may filayn weerar intaa leeg in lagu soo qaado waxaan waddanka gebigiisiiba waanu kala xidhnay haddaan yani markan kuushe anu qoladaan ku jirnay min bari ilaa galbeed may kala soconaynin marka cabsi weyn baa gashay cabsidii waata keentay xataa inay soo ururiyaan dadkii masaakiintaha oo ay 40 qof waa kuwii burca ku dilay 12 qof waa kuwii ku dilay sheekh marka waxay keentay inay dadkii masaakiintaha ee aan waxba geysanin iska soo urursadaan ta kale dawladda Ethiopia taageerayso marka waxay aragtay in aanu niman marka ay dagaal noqoto iyagu waxa la wixii awood ay leeyihiin isku haleyn karaya taageerada inay siinayeen ka siko marka iyaga qudhood aad iyo aad bay kalsooni xaggaasi ay taasi nooga kordhisay annagana nafteedu waxaanu nidhi khalaas sidii masaaridii yahuudi xuduudkii deyrkii Barliif laga dhisay qanaad Suways oo kale mar dambe ma jiray wuu jabay kolka lagaga bilaabo xilligaasi inkastoo ay dhowr sanood oo kala qaadatay intii waddanka gudihiisa la soo gelay haddana waxay macnawiyan siisay inaanu markanu doono geli karro oo runtii waanay noqday in dhalinyaro badan intay galaan oo israacaan markay doonaan waxay doonaan halgeysii bulaaba kasoo samayn karaan soo kaas waxa uu ahaa Cabdisalaan Yaasiin barnaamijkiina caawa intaas ayaanu ku soo gabagabaynaa tan iyo kulantideena dambe sida iyo nabad gelyo